waxaan ku dhex jirnaa tobanka dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan. tobanka dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan waxaa ku dhex jirta Laylatul Qadar sida Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala uu sheegay, taasoo ka khayr badan 1000 bilood. qofkii habeenkan Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala uu haleelsiiyo qabtana camal saalixa waxa uu ka khayr badnaan doonaa 1000 bilood. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, qofkii istaaga habeenka Laylatul Qadarka isagoo rumaysan rajaynaya in laga aqbalo waxaa loo dhaafayaa dembigiisii hore. Abu Hurayra xadiis laga wariyay ayaa wuxuu yiri, Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, waxaan arkay habeenka Laylatul Qadarka waxay iluusiyay qaar ka mid ah ahalkayga, laakiin bal ka raadiyay tobanka ugu dambayso. sida aan ku aragnay xadiidkan, Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la tusay habeenka Laylatul Qadarka, laakiin waa la iluusiyay. habeenka Laylatul Qadarka qof si toos u garanay ma jiro, laakiin waxaa laga raadiyaa tobanka ugu dambaysa ee bisha Ramadaan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay astaamaha gaarka ee lagu gar karo habeenkan si ay dadku isugu dayaan in ay haleelaan habeenkan. waxay leedahay astaamo gooni ah intii lagu dhex jiro iyo markii ay dhamaato astaamo u gaar ah. رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إنها صفية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد.